howlgalkan oo si gaar ah u fuliyeen ciidamada booliska gobolka Hiiraan ayaa lagu soo qabtay dad lagu tuunsan yahay inay ka dambeeyeen qarax bambaano oo xalay lagu tuuray fariisin ciidamada dawladda ay ku leeyihiin xaafadda Buundaweyn iyo ciidamo ka tirsan dawladda oo la rumaysan yahay inay ka dambeeyeen dilka Allah u naxariistay Maxamed Cabdullaahi Xaashi oo ka mid ahaa macallimiinta wax ka dhigay iskuulada ku yaala magaalada Beledweyne oo xalay askar ka tirsan ciidamada dawladda ay ku direen xaafadda Xawataako taliyaha ciidamada booliska ee degmada Beledweyne Korneyl Cali Dhuux Cabdi Mahadalla ayaa TV-ga bulshada u sheegay in howlgalkan ay sameeyeen ciidamada dawladda lagu soo qabtay ciidamo ka tirsan dawladda oo lagu tuunsan yahay inay ka dambeeyeen dilka marxuum Maxamed Cabdullaahi Xaashi iyo dad kale oo loo soo qabtay qarax xalay ka dhacay xaafadda Buundaweyn. xalayta magaalada waxa ka dhacay bam gacmeed oo rabay in dadka lagu waxyeelay in la tuuray laba qofood oo aan tuunsanahay inay yihiin kuwa banka tuuray baaritaan ku socdo ayaa la soo qabtay sidoo kale nin baa lagu dilay mutacallin Allah u naxariisto macallinka ahaa sigma iskuul leeyahay halkan ku yaala dhalinyarada magaalada ku dhashay dadkii wax soo bartay isagana dadkii dilay wali ma dhihi karno waa dambile laakiin waxaan aaminsanahay inaan gacanta ku hayno ka daba tagnay faalahoodiyaan hayna ciidanka asluubta Soomaaliyeed xerada gaal shiraha asluubta Soomaaliyeed ciidan waardiinaya ayay ka tirsanayeen waxayna ahaayeen cutubiyada xoogga dalka Soomaaliyeed xubno ka tirsanayeen Maxamed Xaashi Allah u naxariisto min qaaliyo naga dhintay waay ardadii oo wuxuu dhigi jiray dadweynihii oo ku soo dhax koray dadkii asxaabtii oo wax la soo bartay ummadda Soomaaliyeed oo qiimo ugu fadhiyay iyo waalidiintii dhashay iyo xabadiisiiba waxaan u tiraynaa taasi waxaan leenahay ilaahay samir iyo iimaan Allah idinka siiyo asagana jannada firdawsa Allah u waraabiyo laakiin waxaa lagu dilay si qaldan baan daba joognaa sharcigan u keenaynaa waana haynaa dadkii aan isla hayn ayagii dilay inay yihiin afartuba ciidamada ayay ka wada tirsan yihiin xoogga dalka laakiin innaga hadda sawirku waa noo muuqda way isreebreebayaan baaritaan aan gelinaynaa loo wada dhan yahay oo muxuu ahaa si sharciga waafaqsan loo baarayo sidoo kale taliyaha ciidamada booliska degmada Beledweyne ayaa sheegay in falalka ammaan darre ee ka dhacay magaalada ay qayb ka yihiin ciidamada dawladda dhibaatada ugu weyn oo magaalada Beledweyne taalaana waxay tahay ciidamadii amniga ee inay ammaanka ka shaqeeyaan loogu talagalay ayaa magaalada waxay marayaan ayagoo ku wata oo aan dariiskoodii uniformkii loogu talagalo saxna wadan oo haday rabaan dharcad marka ma balla kala garan karo sida daraadeed taliyaasha ciidamada oo guddiga amniga ku jira maamulka gobolka guddiga degmada amniga intaba warbixintaas waan gaarsiinay waan kala tashanay walaalaheena amisom anaga nacaawiya dhammaan arintaas go'aana laga soo saaray laakiin talaabada xilligii la qaadi lahaay aniga hadda taas waa saas ma dhahayo laakiin magaalada amnigeeda gacanta lagu soo celinaa ciidamada qalabka sida hadda koornay halkeena kala hadeerna wala hadlaa oo gobolka Hiiraan haday yihiin military haday yihiin police haday yihiin asluub haday yihiin nabad sugid dhammaantood maxaan kala hadlayaa nabadgelyada magaalada inay wax ka qabtaan loo sameeyay ayagu inay nabadgelyo wax ma ka shaqeeyaan loogu matalagelin sida daraadeed askarigii asaga oo aan uniformkiisa wadan shaqana ku socon magaalada hub la dhaxmaro waxaan u garanaynaa inuu yahay askari gacan siinaayo caawinaayo cadowga ummadda Soomaaliyeed taliyaha ciidamada booliska ee degmada Beledweyne Korneyl Cali Dhuux Cabdi Mahadalla ayaa sheegay in bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne looga baahan yahay in la shaqeeyaan laamaha amniga dadka reer Beledweyne waxa uga mahad celinaya sida ay noola shaqeyn jireen si ka saa'iday in noola shaqeeyaan Maxamed Cabdi Salay telefishinka caalamiga ee bulsho Beledweyne.